صهيب الرومي رضي الله عنه مالنتم مكة كهجرونيي ومدينة وهجرونيي قريش بأوقاتي رحلة الله قال ku soo baxay nin maalqabeen waxa markaas ay ku yiri adigoo sacluuga oo faqiira oo laabta dhulka ku haya noo timiday ma adoo hantiila naga bixibay ku yiraahdeen dhicmayso imma lacagta iyo xoolaha haysato halka dhig adoo faqiira ka daba tag Muhammad alayhi salatu wasalaam imma xoolaha hayso magaalada Madiina ku noqo magaalada Makka ku noqo iska fadhi oo bi'ada gaalnimada nagu jiray هجرته وحي هيد بقى يري تغيير البيئة هجرته ومحي بيئة مجتمع يكون نحن ولايين قال لماذا يشرك غالب قوية هي إن يكدح بحان بالنبي الصحابة الأمر هجرته معناه هو صداس إيمانك قوي إلى الصدام ودين جود أو حفتان وعقيدة أو بدباديان ودقنك ونكسن أي بدباديان أي الله أمري إن مجالات المدينة أنت مكة أنت كجوران أيو قران مدينة المنورة بسم الله بركة صحابي كان امتحان بقول اختبار محاد مودا إن إلهي وكل يهي إلهي الرسول كيسا ينقالها كلا دورو محود دورتي كلها wuxuu horta dagaaliga ka badin maysa raami baan hoorin waxaana sida wax loo ganaan aqaana ya waxba diga dilay wadi dilaysaan laakiin ana waan dili guul waxba niga layn guul marba haday adduunyo una doonaysaan xoolahayga waa kana intan qaata in kalena meelayd la yaan ku aasay kala soo baxa wadadana ay banayay buu ilaahay rasuulkiisa baan u socdo anigu xaqooday hijra ila allah wa ila rasuulihi diinta agtooda qiimo la lahayd iyaga waxay eegayeen meeshay diinta ku badbaadinayaan meeshay iimaankoodu ku badbaadaya meeshay diintoodu ku badbaadaysa meeshay dhaqanka wanaagsan ku badbaadaya halka maanta inagana maanta muslimiinta qaarkood ay eegayaan halkan lacag ka helaa xageeban lacagtii buu siiyay xoolihii kale ka maqnaana meel heblaayay ka qaatuu yidhi uu soo lugeeyey waa saacad gudaheed min alghina ila alfaqr saacad gudaheed waxa uu ahaa nin maalqabeen oo maaragtaanay ghaniya hodana saacad kadibna wuxuu noqday faqiir sacluga waxba haysan asbaabtii dibadda ka taallay buu iska dhiibay laakiin wuxuu ku bedeshay asbaabtii iimaaniga إلهي رضيه سيبو قاتل إلهي رالي قلنتيس انتو جدك كسي جرو آيا قرآن كنا مدينة المنورة وحي كنا نبي محمد كسي دقا يا أولا ليهي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدا من إلهي رضيه سكو يبسني وحلي وحوها يستورنا نفتي سكو قرآية ودقاليه سكو بحناية سو إلهي ورالي قلي ورضاه إلهي أقالو magaaladii Madiina markuu soo galay Suhayb oo daalan oo lugeynaya ayuu nabigu yiri rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya oo ya saxaabigi صادق المصدوق عليه الصلاه والسلام رسولك ilaahay bale ya aba yahya maanta ganacsiga baayac mushtarka ilaahay alla gashay waad ka macaashay rasuulku yiri geesinimadu baa la yidhaahdaa wax daa'ima maaha waa xilli dadku ay cabsoonayeen oo adigu adkaysato weyn geesinimadu qabuuliyaduna baa la yidhi maaha cibaado badan oo ilaahay ka aqbalo may waa saacad adag oo imtixaan kula soo darsay oo ilaahay amarkiisa aad qaadataa bas qabuuliyadu waa inkaas maalinka buu adkaysay عزيمة قام موقاته وحيري إلهي الرسول كيسي الدنيا إلهي الرسول كيسان قاطعي إلهي ننتبر عليك غنوضة خلاص مركز النبي يقول يا أبا يحيى هي باع مشتركي ما أنت أتصوغ شيوات كم عاشتي يا شيخ قبولية الله ينسيه في غزوة التبوك مركي اللي بحايي ومر أذك بيهايدو حالات أذك أصحاب الله سوى جهدي
dhaqaale xumi kulayl abaar cabsi markaa buu nabigu waan baxaynaa ilaa Tabuuk nin hari kara ma jira maanta waliba nabigu wuxuu ku dhiiriyay saxaabadiisa in maanta nin walba bal wuxuu bixin karo diinta ku nafaqeeyo diinta ku bixiyo nin la oran jiray Ulbah ibn Zayd radiyallahu anhu ayaa habeenkii buu salaatu leelka u kacay ahla sufuuka midaha ilaahayow waxaadna amartay inaan baxno oo qaswada nabigaaga aan raacno oo jihaadka u baxna ayaadna amartay waxaa kaloo nabigaagu nagu dhiirigeliyay inaan dhaqaalahayaga diinta ku bixino yaa rabbi anigu waxaan maanta aan ciidanka ku raacana ma haysto waxaan diintaada ku darsado oo dhaqaalaana iima siinin adigu nabigaagi Muhammadana maanta wuxuu nagu qaado isaguna ma haystee yaa rabbi anigu waxa sadaqadaysanaya maanta aan ku sheegay qof wali qofkii cirdigayga meel kaga dhacay ama xoolahan leeyahay iga dhacay ama aniga ay xantay ama aniga ay caayay ama xaqayga ku xadgudbay ilaahu dartaa baan u cafiyay ilaahu arrimahaas ayaa sadaqadaystay sadaqada la aqbal ilaahu igu dar buu yiri sadaqada la aqbalay xuu sadaqadaysanaya qof ali qofkii cirdigayga meel kaga dhacay ama uu caayay ama uu xantay ama uu dhibaateeyay ama xoolahan lahabu iga dhacay anoo aan war ka haynin ama dabadeedu wax ku sheegay ilaahu dartaa baan u cafiyay waxa ma yaraatay argoosiya inaad iga argudo kama rabiye dartaa baan u cafiyay ilaahu cafiskaas sadaqada la aqbalay igu dar buu yiri maanta habeenkii sidaa buu ku ducaysanayay waagi markuu baryay buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadii subax markuu tujiyay buu nabigu sarakacay markaasuu nabigu ayna almutasaddiq albarihata warnigi xalayt wala sadaqadaystay me sadaqadaystay xalayt wala sadaqada la baxay me markaasaan xagga eegay buu xagga nimo waa kici waayay anigiina waan yaabanahay waan foorarsaday warninkaasi koro waa kuma markaa buu nabigu ku celiyay war sadaqadaystay xalayt wala sadaqada la baxay kume markaasaan xagga eegay ninna ma kicin xagga ninna ma kicin xagga ninna ma kicin markaasuu haddana ku celiyay markaasaan ayaan isla nabi tolom arintaadii baa nabiga loo sheegay markaa baan iska sarakacay buu markaasaan yooyka rasuulallah markaa buu sadaqadii xalay aad la baxday saxaabada u sheeg buu kay qisadii buu ka waramay iyo ducadii xalay tolo wuxuu ku ducaystay markaa buu nabigu ku yiri bashaarayso dadka zakada bixiye ee muuminiinta ee zakadooda laga aqbalay ayaa xalay adigana sadaqadaada lagu daro waa laga aqbalay rasuulku ka yiri niyad wanaagsan niyadoodii bay diinta ku bixiyeen iska daa wax kale inaga maanta diin markii la hadal qaado Soomaalidu diinta waxa uu taqaanaa uu tukadaay maxaa kale oo laga rabaa tahay samaa waan tukadaay sheekh maxay ka doonaysiin ciyaalkaygana quraanka way ii dhigtaan oo waan saantu iyo ubadkuna way asturan yihiin waxaan kala saari laanahay diinta islaamku halkay ka bilaabantaa halkay ku dhamaataa bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda haboogaanina dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra